munaasabadani la isugu soo baxay gudaha degmada Salaxley ee gobolka Maroodijeex ayaa waxa ay ahayd dareen shacabka ku nool degmada Salaxley ay ku muujinayeen qadiyada go'aansashada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo u mahad celiyay baarlamaanka Ingiriiska kuwaasi oo dhawaan dood ka yeeshay sidii dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland aqoonsi buuxa uu uga heli lahaa beesha caalamka iyo gaar ahaan dalkaas Ingiriiska isu soo baxan ka dhacay gudaha degmada Salaxley oo ay dhamaanba ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa sidoo kale waxa qayb ka ahaa maamulka degmada Salaxley iyagoo halkaasi si wada jir ah fariin uga diray ilaahay baa mahad iska leh waxaana amaanan oo amaan iska leh cidiina taageerta ee waxaynu u baahanay sheegna sida Ingiriiska Soomaaliland ha noolaato maanta waxaan soo istaagay inaynu mahad celinno baarlamaanka Ingiriiska oo ka dooday qadiyadeena maalintii dhaweyto si fiican meel fiican way dhigeen run ahaantii shacabka Soomaaliland halka kuma iman bariyo dhiig baa u daatay inaynu maanta adduunka tusno inaynu sidii iyo si ka daranba aynu difaacayno qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aynu taageerayno oo aynu u mahadnaqayno cid kasta oo taageeraysa sida baarlamaanka Ingiriiska oo kale oo ka hadlay arrinta tan waxaanu kale hambalyo u diranayo bogaadin baarlamaanka Ingiriiska oo muujiyay qadiyada Soomaaliland inay ka doodaan waxaynu halka u taaganay abaarta iyo kulaylka iyo bacadka hooyooyinka iyo caruurta iyo dhalinyarada iyo deegaankaasba waxay u taagan yihiin kalgacalka iyo muxubbada ay u hayaan dalkooda waxay ku xiran tahay dareenkeena shacabka reer Soomaaliland boqolkiiba boqol waxay muujiyeen inay midnimo ay dawladooda ku garab taagan yihiin oo ay ka go'een Soomaaliya waxaan kula dardaarmayaa shacabka reer Soomaaliland iyo reer Salaxleyba wixii midnimo qarana inaan qabiil iyo xisbi iyo macnaha aan la gelin siyaasad ama koonfur ha noqoto cid go'aansashada Soomaaliland maanta laga daba fadhiisanayaa ma jirto dadweynaha degmada Salaxley iyo maamulka degmada oo hogaaminayaaba waxay maanta hambalyo iyo bogaadin ballaaran u dirayaan baarlamaanka Ingiriiska ardu alaaf shahiidin ardu lihle kada kodbur ardu ahmad dagax wa amsalhum sharidu sharqa wa qarban shamsu shaacad wa naarad xaqloon hambalyeynana dawladda Ingiriiska iyo dhamaan dunida cid kasta oo u dhaqdhaqaaqaysa aqoonsi raadinta Soomaaliland waxaanu iyagana u mahadnaqaynaa dhamaan madaxda qaranka Soomaaliland itiraafkeeda waa laga hadlay dadkii oo dhan baa ka hadlay inay tahay itiraaf helaysana waa cadaan itiraafka Soomaaliland waa u soo halgantay waa u soo samirtay waqtigeeda la gaaray At the last I would like to send a special message to the British government using the exact words of Master Williamson. Our nation have a long historic ties and now it is the time to make historic together. Thank you very much. nin kasto calooshu ka bugto waxa la madaxweynaha Soomaaliya ku quuso quraanjoy qarankan Jamhuuriyadda Soomaaliland waa qaran runtii marxalado badan soo maray ciyaar kuma iman Soomaaliland maanta haysanaa marxalado kala duwan baa loo soo maray mujaahidiin baa ku dhintay dad baa ku nafwaayay tacab badan baa la soo galiyay ma ogolaanayno cid kasta oo dhibaato u geysanaysa ama yaraysanaysa qadiyada madaxbannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland aad u mahadsantihiin shacabweynaha reer Salaxley runtii way muuqataa dareenka iyo wadaniyada aad u haysaan runtii qarankan iyo inaad tihiin shacbiga Soomaaliland kuwa markay xagga qadiyada iyo jiritaanka Soomaaliland noqoto ugu runtii ay ku weyn tahay aad runtii mahadsantihiin Mawlid Maxamed Saciid warbaahinta qaranka degmada Salaxley